كوبان وحن ران كراهم داعيا ناجحا وكير راعي أنبياء السنة دودي الأنبياء هم الدعاة ناجحا يوم الله وهي وضدك إلهي أدورتي سبحانه وتعالى إن الدعوة تنحنبارا نبي فاشل نمجلو أنبياء دي إلهي صدر ودمي وأنبياء وذا قولي ستي هذا محا مركان ده نداعي الناجح صفات كيسمحون نقونا يوحنا بين نقونا الساعة بعض الصفات الأنبياء في كتاب الله هنا المام حيابا إلهي سبحانه وتعالى وكتاب كيسكوسي في أنبياء داسي اللي يقع قادة الأمة يقع هجان كي نبطاها أمة المسلمين تا يقع ضدك النجاح هذا وإلهي كتاب كيسو كور رميه dhowr qodob oo markaa aan isku xidhnayn baan idin tilmaami doonaa qodobka koowaad aan oran karnaa waxa weeyaan ducaadaasi ambiyada ah waxa calaamad u ahayd koow dadka inay khaaliqooda ugu yeedhayeen dadka cidda loogu yeedhayay inuu rabbi ahaa subxaanahu wa tacaala meel ka sokayso ay ummadda ugu baaqayeen inaanay jirin سادرادد با إلهي قرآن كوحكو ليه سقو النبي محمد أمري عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله كان هو جدك لكن جدك محاوى على مضى إلهي بندتك ويري على بصيرة أنا ومن اتبعني أنا جاي أنت الراعي ضيبا أنا بصيرك السجن دتك وحن ويرينا إلى الله سبحانه وتعالى إذا دتك ملك السكيسين لو حرمها qofka muslimkii markuu dadka u yeedhayo khilaafa la soo celinaya iyo dawlad baa dhismaysay waxa soo ahdaaf sughra asalku waxa weeyaan dadkan in loogu yeedho ilaahay subhanahu wa ta'ala anbiyada waxa loo soo diray waxa weeyaan dadkan inay ugu yeedhaan ad'u ila allah ud'u ila sabil rabbik ba ilahi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila allah يا كور في عم بإلهي لك ضدك وغيرة الله سبحانه وتعالى إذا وحلينا أول سمة من سمات دعاء الناجحة علامات كذا كود وحويان ضدك إلهي بيغير يا سبحانه وتعالى وحكالو يقول واقيا ضدك ما تشيرو شيء الله بعد أن تلمام يا وحويان أي دعاء سلهايه أكتوذا آخرة كالدور مضميد أدونك والإثار بالآخرة على الدنيا قرآن كما كاد يكتئ لهي النبي هذا مركو كور رمي وحكوت المامي يا نبي كستولي وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله وح أجر إذن ويديسن مايو نبي ولبا waxa la yiri waxa tiraahdaa sida dadka ku dheh wax ajra idin weydiisan maayo dacwada najaaxeedu marka wax muuqda qofku marka uu aakhira u tahay hadafkiisa wax ka sokeeyo uu raadcaynaya marka aanay jirin marka uu dacwadiisa uu arkaya abaal markeedu inuu yahay aakhira inuu guulaysto aakhira inuu badbaado naar inuu ka fogaado janno inuu helo markuu kaayay marka nabi waliba fi surah ash-shu'ara marka akhrido nabi waliba fattaqu allaha wa ati'un markuu yiraahdo muxuu ku xigsiinay wama asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala allah nabiyullah muhammad alayhi salatu wassalam bay'atu al-aqaba الثانيه حيكو صلاysnay dawla galay ansari way u timi iyagoo ilaahay rasuulkiisa rumeeyay maalinta aakhiraba waxay yiraahdeen naraac annaga ku ilaalinayna waxaanu naftayada iyo maalkayaga iyo ehelkayaga iyo dadkayaga saanu u difaacna si lamida ayaan ku difaacina bayda ilaahay rasuulkiisa idan diintan baanu difaacina baylay markay taa aqbaleen ay waxay yiraahdeen anana maxaan u leeyahay nabi عليه الصلاة والسلام مو كو أوران أنا قد بدأ يبان مدح نمد قاضي مثال وزيران نقول دونتا
dowlad islaami oo lagu badhaadho oo barwaaqo badan baa heli doontaan dowladda waxaan qaban doontaa saasaa heli doonta waxa kuma odhan nimankan le naf iyo maalba waanu huraynaa wuxuu ku yidhi walakum ljanna nabigu calayhi salaatu wasalaam markay yidhaahdeen maxaanu leenahay annagu markaanu diintan u halganno ee ku ilaalino iyagoo garanaya weliba baycada markay gelayeen ay barhkood ba lahaayeen warbalukaadiya hadda carab oo dhan baa meel qura idinkaga soo wada ridi doonta waranka oo waa laydinla wada dagaalami doonaa wixii iyaga loo ballan qaaday waa maxay waa walakum ljanna idan daaciga naajixa ahi waa daaci janno raadinaya daaciga naajixa ahi waa daaci ay adduunyada kala door bidan tahay ama ka mudan tahay adduunkiisu akhridiisu ay ka mudan tahay saa awgeed diinta faafinteeda hunguri laguma dalbo xoolo laguma qaato hadday ku soo galaan waa walilaahi alxamd bale culamada badh baa waxay dhahdaan in guusha adduunka la gaadho oo dhami waa qayb ka mida qofka saalixa camalkiisiiyo loo soo horumariyey camalkaagii wax ka mida adduunka lagugu siiyey ayaa lagu tilmaamayay muxuu tilmaamayeen markii muscab ibnu cumayr uu dhintay ee uu shahaadada helay ee la waayey wax lagu kanfo ee maradiisii markaa madaxa la saarana caguhu muuqdaan markaa cagaa loo saarana madaxu muuqdo saxaabigii ka warramaya wuxuu lahaa dee iyagu waxay ahaayeen dad waxoodii oo dhan ilaahay aakhiro oo ugu dibdhigay muu soo gaadhin guushii muslimiinta ee dambe iyo saxaabadii dambe milyaneeray noqdeen khanaa'im baa la helay xoolaa la helay alf markaad kutubta akhrido dhaxalku ka tegay hebelya dhaxalku ka tegay waa millionaires alf waa milyanka waayo af carabiga alf wax ka badani kuma jirin tirada ay carabtu taqaano saa daraaddeed alf iyo alf laystaba dhigaa u buu ahaan jiray milyaneerkani waa erayadan cusub ay nagu soo baxay milyan iyo bilyanka iyo kuwa kale af carabigii hore kuma jiro saxaabadii dambe milyaneeray noqdeen laakiin asalku kaa ma ahayn asalku wuxuu ahaa walakum ljanna sida awgeed ambiyadu aakhiray ka door bidayeen adduunka ilaahayna qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa wixii dadka oo dhan lagula dardaarmaya inay tahay bal tu'hiruuna alxayaata addunya waalaakhiratu khayru waabqa ina hada lafi الsuxufi اluulaa suxufi ibraahiima wa muusa taas baa ilaahay yidhi aakhire laga doorbido adduunka oo aakhiro dadka loo jiheeyo ayaa wixii lafi suxufi اluula ahaa suxufi ibraahim wa muusa nebiyadii horena wixii loo sheegay kaasoo ahaa idan ayuha alxiba daaciga naajixi waa ka miqyaaskiisu yahay waxaan maxana ajar ka helaya waa ka miqyaaskiisu yahay ilaahay raalli ma iga noqonaya imka maqaayiis badan baa soo baxda oo cusub oo ah dadku inta uu dheef helayo maadiya ayuu ku xisaabtamaa dadku intuu dheef maadiya helayo ayuu ku xisaabtamaa waxaana laga yaabaa hadday aad dheefta maadigii noqoto waxa uu qof ku xisaabtamayo ama se dadka aad diinta ugu yeedhaysa ay u arkaan inay shaqo kuu tahay warkaagu dhegta xoog u geli maayo waydi nin xoogsanayaa lagu arkaa ninka xoogsanaya waa nin xoogsanayo soo maaha wuxuu doonayaa ka xoogsanayay haddii loo arko diinta aad sheegaysaa in waxa ka dambeeya uu yahay xoogsi imaam baad too mushahar baad ku qaadataa macallin qur-aan baad too mushahar baad qaadataa macallin jaamacadeed baad too mushahar baad hadday dadku suuraddaa u arkaan dee waxay arkayaan nin shaqooyinka ka mida la qabanaya kama warramayno dee dadku ilan lama odhanayo baktinaya haddii aan cidiba wax siinaynin haddaanu baytimaalba jirin laakiin waxaa ka qurux badan qofka arsaaqdiisa inuu meel kale ka helayo diintiisana uu seeda u faafinayo taasaa waxay dadka dhagahooda ka geli og tahay markay u arkaan inaad luqmadaadu ku xidhan tahay walidalik baa nebi waliba wuxuu dadka alla lahaa beri ka noqo inaad waxba ka rabin ila marka la leeyahay qul dheh ilaahay markuu nebiga ku yidhaahdo wamaa as'alukum calayhi min ajrin kudha marka la yidhaahdo
macnaheedu waxa weeyaan beri ka noqo oo dadka fahamsii waxba inaad adigu ka rabin waxooda adduunkooda inaad rabin madaxnimadooda inaad rabin waxay dadku doonayaan oo dhan inaad ka doonin hadday dadku ku arkaan nin siyaasi iyo kursi ku socda inaad tahay diintan aad waddo inaad kursiga ku doonayso dee waxay ka agtooda aad la mid tahay kan kale ee siyaasigeeda isna kursiga raadinayo isagu keeba xaq ku taagan iyo baabkaa ninkan eegi maayo ee wuxuu ka dhex arkaa xuduuda nafsi inay meesha ku jirto xagga nafsi iyo dadku raadcaynaya inay meesha ku jirto idan waxaan leenahay dacwatu alambiyaa waxay caan ku ahayd inay aakhiro doorbidayso dacwaadka muslimiinta dambe wadaana intay dar alle wadeenna xoog bay u socotaa markay xuduuda nafsigii soo gashana waaba la isku qabqabsadaa una murankaa bato una way dabacdaa markaanay xadka nafsiga lahayn bay ka xoog badan tahay marka ay leedahay alxuduud nafsiya qodobka saddexaad aan tilmaamaya waxa weeyaan simaatu dacwati alambiyaa ee lahayd waa aliltizaam aw alqudwa alxasana intaanay dadka waxa u sheegin wuxuu iyagu ka muuqan jiray laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana yay ugu sugantay liman kaana yarju llaha walyowma alaakhira wadakara allaha kaiira waxay ahaayeen dad fi اsidq fi اtaqwa fi اlcafw fi اlxilm fi اlraxma fi اlrifq yani waxaanaynu ku baaqayna dada iyaga ka muuqdaan dad dulqaad badan oo cafis badan ma u malaynaysaa midkeen in lagu yidhi intii ambiyada lagu yidhi intaynu qur-aanka ka akrinoo qura saaxirun aw majnuunun kadaabun muftar waxaa qur-aanka ku qoran ee nebi lagu yidhi in midkeen lagu yidhi ma u malaynaysa mise haddii isha laynagu yaro gubo waa iscuncunnaa hadduu wadaad kale kaa yaro hadlo habeenkaa gami maysi daama mid ka fogiiro kaa hadle yani waxaa loo baahan yahay waxa weeyaan qudwada xasanka ahi ama qudwadan aynu ka warramayno ama iltizaamkan aynu ka warramayno waxan aynu dadka ugu yeedhaynaa daaciga naajix waa ka isaga ka muuqato walidalik ba ambiyadu iyagoo dhiigu ka da-ayay dadka u ducaynayay allahuma akfir liqawmi fainahum laa yaclamuuna xaadiistaa garanaysaa goortu xadiidkan leeya waa goorma waa goor nabarku ku yaallo adigoo halkaa iska maraya haddaad tidhaha allahuma akfir liqawmi fainahum qawmun laa yaclamuun dee dhibkuguma hayso laakiin marka lagu tumo ma odhanaysaa su-aashu waa taa ilaa adigoo iska nabad qabo halkaa jooga haddaad tolkaa u ducayso dhib maaha mashaakil la dareemi maysa laakiin markay ku tumaan ama kii kuugu xigay uu ku garaaco ama uu ku ceebeeyo ama wax kaa sheego miyaad is cuncunaysaa mise waxaad leedahay allahuma akfir liqawmi waa duulaan wax garanayn idan ambiyadu waxay ahaayeen waxaan ay dadka ugu yeedhayaan waxaanay dadka ugu yeedhayaan ayay waxay ku ahaayeen qudwa xasana taasaa waxay keensanaysay in la rumaysto waxaan inay dhab ka tahay inaanay dan kala ahayn soo marka hore maynuna dhan aakhira ku xoog badnayd marka labaadna wixii markuu isaga ka muuqdo waxay arkayaan inuu ficilkoodu dhab ka yihi marka saadiqiin bay ahaayeen sidqi kullu ilaahayna uu run sheega khalqigana uu run sheega dad cabsida ilaahay ka muuqata bay ahaayeen dad naxariista iyo rifqiga ahlu sunna waxay idhaahdaan wuxuu caan ku ahaa waa arxamu khalqi illaahi likhalqi illaahi bay ahaayeen bay idhahdaan halka ay tawaa'ifta kale lagu tuhmayey inay ahaayeen dad dadka dhiba oo ama laaya ama mashaakil u geysta ama kan u geysta daa'ifatu ahlu sunna waxay ku caanbaxday waa kaa inay ahaayeen dad naxariista iyo rifqiga ku caana oo umamkao dham iyaga hoostooda ku nool yihiin dawaa'ifta kale laguma hoos noolaan jirin xataa maanta dawaa'ifta yareeree kristanka ka soo hadhay waa kuwii caalamulislaamna u joogay waxa ka dambeeyey waa wixii soo baxay brotestanka gadaashi mucaaradiinta qoladii la odhan jiray qarnigii 17aad wixii ka dambeeyey meelahaas wixii soo baxay ama طawaaئف النasaara الqadiima waa intan caalamulislaami joogta طawaaئف الyahuudi الqadiima waa kuwii caalamulislaami joogay waayo iyagaa hadda dadka u naxariista
dad lagu dhex noolaan karo iyagoo laga mabda' gadisan yahay muslimka aan ku aha ama